doorasho dadban runtii waxay ka mid tahay waxyaalaha aan la yaabanna dowladdii xasan cali kheyre maxaa lagu riday soomaaliya inuu dhahay doorashada waqtigeeda ku dhacee kororsiinana ma jiro waa in doorasho dadban la qabtaa Soomaaliya ma markii dowladdii la riday oo wadankii foodo oo galay oo qarxi oo batay maanta la ogolaanayo waxa la leeyahay doorasho dadban la qabanaa runtii aniga waxaan u arkaa inay tahay qariska tuur oo la rabo wadanka in maaragtay mugdi lagu geliyo aysan soconayn teeda kaleeto doorasho qof iyo coda xaggee lagu qaban karaa wadankii waa aragtay amnigiisa maalin kasta qaraxa dhacayo xaaladdu sida ay tahay runtii aniga waxaan u arkaa in ay tahay arrin la rabo wadanka in mugdi lagu geliyo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in runtii wadanka ilaahay noo hagaajiyo kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta hawada naga daawanaysa idil ahaantiinba meel walba oo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkeennii hal door oo aad alaaba ka daawataan warbaahinta Warsan TV barnaamijkeena toddobaadkan waxaa marti igu ah isla markaana igala qaybgelaya Cabdirasaaq Faarax Axmed oo isagu ku magac dheer Cabdirasaaq Indha Jacayl Cabdirasaaq marka hore ku soo dhawow barnaamijka waa maasantahay Liban Lucky oo ku dhawaa barnaamijka hal door ee Warsan TV waxaan kaaga mahadcelinaa cabdirasaaq aan ku bilaabee ka dhalinyaro ahaan bal marka hore waxaad noo sheegtaa farqiga u dhexeeya nolosha qurbaha iyo tii wadanka Liban waa maasan tahay nolosha qurbaha iyo nolosha wadankii horta runtii wax isku dhow maaha maxaa yeelay wadankaaga aad joogtaa waxaad la joogtaa hooyo waxaad la joogtaa aabe wax isku dhowna maaha sababtoo xitaa qurbo markaad joogto waxa kugu dhici doona runtii ma dareensanid waxay noqon doonaan mawd marka wax isku dhow ma cabdirasaaq waxaad ka mid tahay dadka aragti ahaan diidan amaba ka biyo diidan sida ay dowladdu wax u wato adigu aragtiyadaada maxay ku salaysan yihiin Liban aragtideedu waxay ku salaysan tahay runta iyo xaqiiqda oo runtii ummadda loo sheego ummaddan ummad 30 sano dagaal ku soo jirtay waaye oo soo rafaaday waxaad ka warqabtaa Liibanow dowladdan hadda markii ay dhalatay weedaan u maleynaa in maaragtay dadkii xitaa qabanqaabadan ugu jirto oo aad u taageero runtii dhalinyaro ahaanteena oo aad aan soo dhaweynay wixii aan meesha ka sugaynay iyo xaalka sida uu noqday wax isku dhaweynaysa noqon oo runtii dhalinyarada Soomaaliyeed aad ay u niyad jabtay marka waxaan u baahanahay qof ay ka run sheega waxa uu doorashada ku soo galo oo xaqiiqdiina waxa uu dadka u sheego iyo markuu kursiga oo fariisto hadalkiisii hore iyo kan ay islaadaan cabdirasaaq inta badan dhalinyaradu marka ay wax taageerayaan waxa ay wax ku taageeraan aragtiyo qabyaaladaysan miyaan la dhihi karin marka inaad tahay adiga qof qabyaaladaysta ah oo qabyaalad daraadeed dowladda uga soo horjeeda Liban maca asaf horta aadaan ugu xumahay inaad maaragtay kelmaddaas ka dhawaajiso oo dhanka qabiilka aniga waxaan ka mid ahay dadkii run ahaantii dagaalka kula jiray in dowladdan aan la qabyaaladeen oo dad badan aniga waxaan kula dagaalay xitaa qabyaalad u taageerayo maanta kursigii markay iska dhex arkeen dowladdan way fiicantaa markii laga qaado qofkii kursigana maaragtay ayagoo mucaarada la arko marka aniga waxaan ka mid ahay dadka run ahaantii u ololeeya xitaa in dhalinyarada qabyaaladda ay ka fogaato aadaanan u boorinaa maaragtay dhalinyarada hadda waxaan rabnaa insha Allah waxaan soo wadnaa xitaa barnaamij oo ku saabsan dhalinyarada sidii qabyaaladii ula dirir lahayd insha Allah falkeediina waa ku jirnaa cabdirasaaq dowladda hadda jirta waxaa jira waxyaabo badan oo ay qabatay sida maxaabiis Soomaali ah oo jeelasha caalamka laga soo daayay deyntii oo la cafinayo dhaqaalihii oo kordhay shaqaalaha dowladda oo iyagu mushaarkooda si toos ah u qaata musuqmaasuqii oo la diriray xarumihii ku burburay dagaalkii ahliga ee Soomaaliya oo dib loo dayactiray qabkii iyo sharafkii Soomaaliya oo la soo celiyay billahi calayk intaasoo dhan miyaanay kuu muuqan marka aad dowladda ku naban tahay oo aad mucaaradadeeda meel walba la taagan tahay runtii aniga horta aadaan ugu faraxsanahay in maanta qof Soomaaliyeed xabsiga laga soo daayo oo maanta qof kasta ku farxayo in maaragtay qofkii maanta jeer ku jiray oo dhibaataysnay dowladana waa ku amaanaynaa runtii waxyaalaha hadda dowladda hadda jirtay aan ku amaanaynaa waxa kamid ah maxaabiist oo meel kasta igu tagtay
marka taasi waxaa ka daran wadankii muhiimadda koowaad waxay tahay amniga iyo maaragtay dadka inay nolol helaan waad ujeedaa maanta wadooyinkii xiran oo shalamaana daraad waa ujeeda meed waxa la waa meel la marsiiyo qaraxna wuxuu ka dhacay Lido marka run ahaantii waxa maanta ka jira Soomaaliya wax la dhayalsan kara ma in maanta qof meel soo istaago yiraahdo amnigiyan ka shaqeynay waxaanan qabanay waxa ma tarayso ilaa iyo indhaha wax lagu arko oo ummadda ay aragto isbedel iyo dawladda inay wax qabato marka anigu waxaan u arkaa run ahaantii sheekada aad ugu sawir iyo waxaan qabtay oo 4 sano wadoon ay xirnaayeen oo maantana qaraxa oo meel kasta uu ka dhacayo run ahaantii wax ma aragtay isla barbardhigi kara baan mararka qaar hadalkaaga waxaa iiga dhadhamaysa inaad si gooni ah u taageersan tahay xisbi ama koox gooni ah oo siyaasadda Soomaaliya ku lug leh laakiin haddii aan ku weydiiyo kuwan hadda adigu aad taageersan tahay ee loogu yeero saamileyda siyaasadda ma ii sheegi kartaa wax ay Soomaaliya u qabteen markii ay xukunka hayeen aniga horta liiban xisbi ma taageersanin laakiin haddii hadalkaaga waxaan ka dhimashay saamileyda waxaa jira dad badan oo saamileydaas ka mid ah oo run ahaantii waddanka wax u qabto heerkan maanta wax soo gaarsiin marka waxaa ii muuqata dadkii shalay soo dadaalay oo wax soo qabtay in maanta laftigoodii loo arko dad maanta wax qarbudayo oo maaragtay aan ka shaqeynayn maslaxadda ummadda Soomaaliyeed Soomaaliya horta way ka weyn tahay xisbi iyo maaragtay farmaajo iyo madaxweyne way ka weyn tahay marka muhiimadda waxay tahay dadkan maanta bisil oo run ahaantii meel kasta ku dayacan in maanta qof oo u soo baxo oo wax u qabto taasaa muhiim ummadda Soomaaliyeedna taas ku farxay meel kasta joogaan أبدا ذكر حتى أتاجري يعني هاي كوي بدأ Soomaaliya إيسر واحد دولة زمان كله إنه يدقوا إيسر ذكر يدلك بالعاجز horta waxaan aad ugu xumahay Soomaalida inay aad u jecel yihiin waxyaalaha warxamada shirka dowladii ka horeysay waa dowladii maxkamadda dacwadda geysay maxkamadda adduunka oo raanti xitaa Kenya ka diiday in wax wada hadal ay u furto waxa hadda noocad in maanta shakiba uu jiro dowladda hadda jirto oo farmaajo in maanta meel ay ku sheegto run ahaantii dacwadii iyo qaabkii ay u socotay oo markastana la leeyahay waxa lagu daray sanad marnaba la leeyahay maxay ahaato way afgarteen in maaragtay ay ka wada hadlaan qadiyadda badda marka waxaan leeyahay run ahaantii dadka sharafta leh oo waddanka u soo shaqeeyay in aan sumcadda laga dilin oo run ahaantii xaqiiqada la fiiriyo meesha hadda ay wax ka socdaan iyo sida xaalka uu yahay waxaan ii cad aniga haddeertaanba in ay shaki weynba uu ka jiro qadiyaddii badda oo raantii ummadda Soomaaliyeed ee aad ay u sugaysay inay maaragtay warkeeda iyo akhbaarteeda yeesho dhawaan waxaa loo dareerayaa doorashooyinkii madaxtinimada ee Soomaaliya waxaa jirta in dhawaan lagu heshiiyey inkastoo maamulada qaar aanay ka qayb ahayn hase yeeshee warmujeedkii soo baxay waxa uu sheegay in la geli doono doorasho dadban taasoo si ahaan ka duwan tii hore mar haddii la leeyahay dadka Soomaaliyeed waxaa la siinayaa fursad ay ku codeeyaan oo gobollada kala gedsan ee Soomaaliya la filayo in la geeyo sanadiiq dadkuna ay codeeyaan si ay u doortaan cidda ay danaynayaan miyaanay ahayn dimuqraadiyad hore loo gaaray miyaanay ahayn in dawladdu ay ka dhabaysay wixii shaqadeedu ahayd xagga doorashooyinka isla markaana hadda ay u muuqato inay gaarsiisan tahay inay fuliso hawsha loogu talagalay doorasho dadban runtii waxay ka mid tahay waxyaalaha aan la yaabanna dowladdii xasan cali kheyre maxaa lagu riday Soomaaliya inuu dhahay doorashada waqtigeeda ku dhacay korsiinana ma jiro waa in doorasho dadban la qabtaa Soomaaliya ma markii dowladdii la riday oo wadankii foodo oo galay oo qaraxii oo batay maanta la ogolaanayo waxa la leeyahay doorasho dadban la qabanaa run ahaantii aniga waxaan u arkaa inay tahay qaar iska tuur oo la rabo wadanka in maaragtay mugdi lagu geliyo ee soconayaan teeda kaleeto doorasho qof iyo coda xagee lagu qaban karaa wadankii waa aragtay amnigiisa maalin kasta qaraxa dhacayo xaaladdu sida ay tahay run ahaantii aniga waxaan u arkaa in ay tahay arrin la rabo wadanka in mugdi lagu geliyo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in run ahaantii wadanka ilaahay noo hagaajiyo ugu dambeyntii Cabdirasaaq waxaa jirta inaan soo dhagadeeyay inaad qayb ka tahay urur la ii sheegay inuu halkan ka diiwaan gashay isla markaana hadafkiisu uu yahay sidii loo xididsiibi lahaa qabyaaladda dilatay dadka Soomaalida hadday noqon lahayd qurbaha iyo gudaha waddanka
urkaas aad qaybka ka tahay adiga ujeedkiisuna yahay bal inuu la dagaalamo qabyaalada sidii dadka Soomaalida ahayna ay mar kale dib ugu midoobi lahaayeen oo qabyaalada ugu tagi lahaayeen qurunka ugu tilaabsan lahaayeen oo ay noqon lahaayeen dad jaayid midaysada wax isu ogol isqadariya jecel inay wada noolaadaan marka la fiiriyo hoggaankiisa bal maxaa ururkiina laga filan karaa waa sax liibaan ururku waa urur jira anaga ana gudoomiye u ah ururka waxaan u aasaasnaa waxaa ka mid ah in run ahaantii qabyaalada aan la dirirno waana midda ugu muhiimsan oo run ahaantii aan isdhihi karno maanta waddankiia lagu badbaadi karaa sababta waxay tahay dhallinyaradii waxay iskugu jiraan qaar maanta ay qaaday qabyaalada oo wasiir hadduu maanta xukuumaddii ugu jiro maanta wasiir ahaan ku taageera oo aan u fiirinayn waxqabadka marka run ahaantii meeshaan aniga hadda waxaan ku hayaa liis 350 dhalinyaro ah oo isdiiwaan gelisay oo 25 waddan kala jooga oo run ahaantiina hadda heertaan aan rajaynayna insha Allah bishaan markii ay dhammaato in maaragtay xafladii aan qabanno dhalinyaradaasna waxaan aan rabaa insha Allah inaan liisaskooda insha Allah barnaamijka wareysiga dambe insha Allah aan kusoo gudbiyo barnaamijkaasna insha Allah waa ku jirnaa waan insha Allah waan kugu casuumi doonaa aad aan u mahadsantahay وهاك انت اسنا waxaa ku dhan barnaamijkani hal door oo aad si toos ah uga daawaneysaan warbaahinta Warsan TV isla markaana uu igala qayb galiyay saaxiibkay Cabdirasaaq Faarax Axmed oo ku magac dheer Cabdirasaaq inta jacayl haddaba tani intaan dib daba barnaamijkan oo kale haddii Allah uu dilo raali ka noqdo dib mar kale hawada ugu kulmi doono idil ahaanteeba aniga iyo Cabdirasaaq waxaan idinkaga tagaynaa fi amaanillah Cabdirasaaq aad baad u mahadsantahay liibaan aad iyo aad kaaga fadcelin aad iyo aad